dadka oo maxay tahay meeshan jooga waxay u shaqeeyaan Israa'iil iyo Imaaraad bay u shaqeeyaan Israa'iil iyo Imaaraad ay u shaqeeyaan warkooduna war suuq la maahan war gadmaaya ma aha warooyinka mucaaradka oo ku awr kacsanaya dad la barakacay baanu danahooda iyo xuquuqdooda u doodaynaa waxaan u sheegaynaa dad la barakacay inaydaan xuquuqdooda u doodayn ee danihiina khaaska u doodaysaan dad annagoo shucuubta Soomaaliyeed ka mid ah deegaankan lagama barakacin waana loo sharciyeeyay qof maanta meesha ma taagana dhibaato dareemaysa qof walba nasri iyo naxariis uu dareemayaa dhulkiisa in loo sharciyo uu dareemayaa dadkan inaan loo been sheegin oo aan masiirkooda iyo maslaxadooda iyo waxa ay haystaan qof gaar ah oo uusan isku dayin inuu marin habaabiyo annagoo og inay jiraan kooxo gaar ah oo dana gaar leh oo dadkan waxa ay haystaan oo amniga leh oo deegaanka leh oo qanaacada leh oo dawladnimada dhammaystiran oo kaabayaalkeedii dhammaan aan haysano dad ayaa raba inay dana gaar ah ku fushadaan mana ka yeelayno dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisan sida odayaalka dhaqanka salaadiinta ardada gabdhaha sharafta leh iyo dhammaan bulshada ka soo qayb galashay iyo mas'uuliyiinta qaybaheeda kala gedisan waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda alsalaan bulshada ama shucuubta maanta meeshaan iskugu timid oo xaafaddan deggan oo difaaca cirka iyo seerfiskiisa oo ku magac dheer haanta dheer loo sharciyeeyey oo dawladdu u sharciyeysay waxay isugu yimaadeen inay u mahad celiyaan mas'uuliyiinta dawladda oo ugu sarreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada ciidanka qalabka sida iyo dhammaan qof kasta oo magaciisa ka tagay ayaan uga mahad celinaynaa sidii sharafta iyo wanaagga lahaa oo ay shucuubtan ugu sharciyeeyeen dhulkii dawladda oo ay deganaayeen 30 sano ayaan ugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad aan uga mahad celinaynaa dadweynow dhulkii dawladdu idin sharciyeysay maxaad ka tiraahdeen madaxweynaha maxaad ka tiraahdeen golihiisa wasiirada maxaad ka tiraahdeen ciidanka qaranka maxaad ka tiraahdeen gobolka banaadir maxaad ka tiraahdeen ha guulaystaan baan leenahay sharafta iyo wanaagga iyo qiimaha iyo maamuuskana loo sameeyey annagoo shucuubta Soomaaliyeed ka mid ah deegaankan lagama barakacin waana loo sharciyeeyey qof maanta meesha ma taagana dhibaato dareemaysa qof walba nasri iyo naxariis uu dareemayaa Bismillahir Rahiim walaalayaal waxaan halkaan ka salaamayaa munaasabadan dadka ka soo qayb galay qof walba nasabka halkaan ku joogaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan madaxda iyo dadka deegaanka inta halkaan nagala soo qayb gashay waxaan leenahay saxaafadda waa mahadsantiin marka labaad waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dawladda federaalka oo madaxweyne ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha gobernatooraha gobolka dhammaan intii ka qayb qaadatay oo maxay ka soo shaqaysay arrintan nalagu deegaameeyey dhulkii aan halkaan awal deganaan jirnay asagoo basiiba dawladdu ay maxay dibadajin noo samaysay noo sharciyeysay waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asxaantu jisakallahan leenahay marka xigta waxaan rabaa halkaan inaan ku darsado aragtidayda maxagga arrimaha siyaasadda annaga madaxweyne xasan sheekh cidna kuma doorsanayno xasan sheekh ha guulaysto waxaan doonaynaa xasan sheekh inuu mar labaad ku soo laabto mar saddexaad ku soo laabto mar afaraad ku soo laabto hogaamiyaha dhabta ah waddanka inuu noqdaan doonaynaa waxaan doonaynaa xasan sheekh inuu xilka ku soo laabto waxaan doonaynaa inuu midnimada iyo isku xirka ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyo inuu xuduudaha Soomaaliya oo dhan isku keeno inuu maxay Soomaaliya oo dhan mideeyo inuu maxay meelaha dadka raba waddanka inay kala jarjaraan inaan maxay aan dhag jalaq loo siinin dadka masaakiinta oo maxay ay ku rati kacsanayaan oo ayaga dawladda iska hor keenayaan waxay ku gaarayaan ma jirto
waxay rabaan walaalayaal jaranjar inay idinka dhigtaan jaranjar ay idinka dhiganayaan waxay rabaan walaalayaal waxay rabaan inay jaranjar idinka dhigtaan waxay rabaan walaalayaal waxay rabaan inay jaranjar idinka dhigtaan waxay rabaan inay maxay tolo siyaasadii markay dadkii ka gadmi weyday habeen iyo maalin say u taagnaayeen jaafeeradii cadaaday waxay tarahayaan male wax dhintay weeye wax dhintay marka dadkii markay naceen siyaasadoodii gadmi weysay ee waxay go'aansadeen si maxay tolo meel kalood wax ka martaan lama arko dadkaanu idin ma rabo maxaa ka gadin maxaa dadka ka gadin alla ilaahay dadka barakacayaasha ha loo tago oo maxay tolo dawladdu dhulka ay u sharciyeynayso guryaha dadka dawladdu guryaha ee dhismayaasha ay dawladdu saxayso oo maxay tolo basiibka ay ka maxay ka hagaajinayso oo ay dibadajinta u sameynayso inay halkaas wax ka dhex raadiyaan oo maaragtay ay halkaas ay wax ka raadiyaan marka waxay ayagoo hoteelkooda aan soo dhaafi karinin waxay samaysteen dad dalaaliina ay samaysteen walaalayaal dal dalaaliina ayay samaysteen walaalayaal waxay samaysteen dad dalaaliina oo maxay sidii kuwii dhulka gadi jiray oo kala xaafadaha ku wareega waryaa xasan sheekh nacab noo soo raadsha waryaa meel xaafad wax laga duminaya noo soo fiiriya marka waxa weeye dadkaasay samaysteen waxay idin hal mudaharaado annaga idin garab taagan ay leeyihiin waxna idin mataraayaan inay ilmaha idinka laayaan ay rabaan habeen hore waa dhaaranayaan waxay laayaan soo baxa guryihiinna u soo dukada maaragtay annaga idin garab taagan markii shalay ilmaha laydinka dilana idinma soo bixin walaalayaal waxaan leenahay dadka maxay ahayd Soomaaliyeedow kuwaas aragti dheer u yeesha dadka degmada Dayniile degan oo wali aan dhulkooda la sharciyeen waxaan leenahay walaalayaal amarka dawladda u hoggaansama walaalayaal dawladda amarkeeda u hoggaansama dhulka ha laydin sharciyeeyo dawladda maxay tahay inaad isfaham la samaysataan ogolaada dawladda ha ka hor imaanina dhulka ha laydin sharciyeeyo annaga hadda waa degannahay sharciyaa nala siiyey adinkuna annaga nala mid tihiin sidaas oo kale la rabaa in dawladda laydin sameeyo adinkay dawladda ayaan laydiska kin hor keenin walaalayaal nimanka mucaaradka oo maxay tahay meeshaan jooga waxay u shaqeeyaan Israa'iil iyo Imaaraad bay u shaqeeyaan Israa'iil iyo Imaaraad ay u shaqeeyaan warkooduna war suuq la maahan war gadmaaya ma aha waxaan idin leenahay Soomaaliya ha ku kadsoominina lacagta Imaaraad ku soo diraayo Israa'iil ay maxay tahay Imaaraad bixinaayo oo dani la soo marsiinaayo oo mucaaradka loo keenaayo oo dadka la leeyahay ku banaan baxa ilmaha ayaa la idin galayna waxa idin qabanaysa male waxaan baad u celinayaa mas'uuliyiintii soo abaabushay banaan baxan lagu taageerayo madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Dayniile oo aan ka tirsanahay iyo dhammaan inta hawlaha ka soo qayb gashay deegaankan hawshiisa waxa weeye madaxda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annagu waxaanu nahay dadka degan aradii difaaca cirka la dhihi jiray oo ku magac dheer haanta dheer deegaankaas aanu degannahay annagu sidii aan u deganayn ayaa dawladdu nagu sharciyaysay madaxweynuhu ugu horeeyo iyo in alla inta maamulka iyo xukunka uga hoosaysa wanaaggaas iyo dibudejintaas naloo sameeyey ayaannu ka mahad celinaynaa intii la doono 100% walooyinka mucaaradka oo ku awrkacsanaya dad la barakacay baanu danahooda iyo xuquuqdooda u doodaynaa waxaan u sheegaynaa dad la barakacay inaydnaan xuquuqdooda u doodayn ee danihiinna khaaska u doodaysaan dadkana ku awrkacsanaysaan hadday jiraan dad la barakacay annagoo ka mid maahin annagu waxaan caddaynaynaa haddaannu nahay reer difaaca cirka inaan nala barakicin in dibudejin naloo sameeyey in dhulkeennii naloo sharciyeeyey in dukumentiyashan oo sharciga la siiyey arrintaas waxaannu 100% uga mahad celinaynaa madaxweynaha dalka u sarreeya mudane doctor xasan sheekh maxamuud
كلنا وحو دارين هاي أو ذكرت الشمية بحكي محاوها كمهذا علنت dhulkii loo sharciyay oo ku yaalay xaafada Dayn ila gaar ahaan haanta dheer madaxweyntaas waxa ugu horeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka gaarto ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka wasaaradaha in alla intii ku booriday waxaan hawada u marsiinaynaa madaxweyne intaas ka bacdi waxaan leenahay dadkan dhammaantood waxaa ka mas'uula dawladda dhulkana dawladda ka mas'uula dadkan dhammaantood dawladda ka mas'uula dhulkana dawladda ka mas'uula dawladda ayaana u garatay inay sidoo ku sharciyeyso inay mudan yihiin u ogaatay aad iyo aadaan uga mahadcelinay in dambajasho ku sameeydo oo sifada sharciga ugu sarreeydo oo saxan ay ku siido aad iyo aadaan uga mahadcelinaynaa dawladda federaalka dadkan marka laba waxay leeyihiin laba nasiib ay heleen oo ah in dhulkii loo sharciyay sifa sharciga dawladda ay u siiday ay ka mahad celinayaan